maxay yihiin saamaynta ay daroogo dijitaalku iyo isticmaalka telefoonka ay ku leeyihiin nolosha maalinlaha ah sidees looga hortagi karaa assalaamu calaykum dhammaantiin ku soo dhowaada meel kastoo dunida daclada aad ku sugan tihiin mawduuciina maanta wuxuu ku soo go-an yahay xakamaynta isticmaalka telefoonka kaasoo run ahaantii aan ka hadli doono saamaynta ku leeyahay saamaynta telefoonka casriga ah oo ku leeyahay nolosha caafimaadka maskaxda iyo xiriiryada bulshada haddaba haddaan gudagalo mawduuciina maanta dhaha mawduuciina maanta telefoonka gacanta ayaa noqday shay lafdhabar u ah nolosheenna isagoo ku siinaya helitaan aan xadidnayn iyo madadaalo ay ka haysa inaad klik samaysid laakiin halka kale wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan buu leeyahay telefoonkaynu ayaa run ahaantii sidoo oo kale noqday mukhadaraad dijitaal ah naga qabsaday dareenkeenna iyo wakhtigeennaba haddaba mudane iyo marwo sidee baan u xakamayn karnaa ku tirsanaanta telefoonka waan u heli karnaa run ahaantii dhelitarnaan halkan bodkastkeena maanta waxaan ku xusi doonaa oo soo bandhigi doonaa xeelado waxtar leh oo run ahaantii kaa caawinaya inaad yaraysid isticmaalka telefoonka qodobka ugu horeeya ee mawduuceenu waa fahanka ku tirsanaanta dijitaalka haddaba maxay tahay si loo yareeyo ku tirsanaanta telefoonka waa muhiim in run ahaantii marka ugu horeysa oo waxaan la ogaado la fahmo calaamadaha ku tirsanaanta dijitaalkan tusaale ahaan daraasad ayaa muujisay in celceliskii 50% dadka isticmaala baraha bulshada ay dareemaan in ay adag tahay maalin qura inay joogi karin iyagoo isticmaalin telefoonka qaar ka mid a dhallinyarada ayaa laga yaabaa in ay la kulmaan caajis gaar ahaan la-aanta telefoonka iyagoo isticmaalayn run ahaantii taa wax ka dhigan tahay maqnaasho waxay dareemayaan maqnaashaha inay la socon dhacdooyinka muhiimka ah runtii mudane iyo marwow taasoo si weyn run ahaantii u kordhinaysa ku tirsanaanta isticmaalka telefoonka gacanta fahankan saamaynta badan ee ku tirsanaanta noloshaada ku leedahay waxay noqon kartaa tallaabada ugu horeysa ee isbeddelka keenaysa markaad garatid horta fahanka ku tirsanaanta telefoonka qodobkeena labaad ee mawduuciina maanta waa samee wakhti aan la isticmaalin telefoonka in la sameeyo wakhti go-an oo run ahaantii aan isticmaalin aafurin telefoonka gacanta waa hab waxtar leh oo run ahaantii kaa caawin kara inaad yareysid isticmaalka tusaale ahaan wakhtiga cuntada ama wakhtiga hurdada ka hor inaad run ahaantii noqdaan wakhtiyo aan soo qaadanayn baka telefoonka gacanta waxay noqonaysaa in aad yareysid isticmaalka telefoonka waa hababka ugu fiican daraasado waxay run ahaantii muujiyey in inta badan 40% dhallinyaradu ay seexdaan iyagoo run ahaantii gacanta ku haysta telefoonka gacanta taasoo sababta oo hoos u dhigta tayada hurdadiisa qofka waliba ee saa sameeya mudane iyo marwow haddii aad dejiso wakhti aan telefoonka gacanta run ahaantii ay isticmaalaynin waxay ku caawin kartaa ama ku siin kartaa inaad si fiican ugu dhiiratid waxyaabaha kale ee noloshaada gaar ahaan sida iskuulka jaamacadaada sport inaad samaysid waxaa dhan bay kaa caawin karaysaa haddaba haddaan isla fahanay saamaynta inaad samaysid wakhti aan la isticmaalin telefoonkaaga qodobka saddexaad waxa weeye waa inaad yeetid ama soo dejisatid abka run ahaantii xadidaya wakhtiga la isticmaalayo kusoo dejiso telefoonkaaga kusoo dejiso ababka kaa yaran kara kaa xadidi kara isticmaalka telefoonkaaga run ahaantii way ka mid yihiin waxaa loo yaqaano moment application loo yaqaano screen time ama forest waxay run ahaantii kaa caawin karaan in aad la socoto xadidaada wakhtiga aad ku bixinayso telefoonka gacanta waxaa jirta 70% dadka isticmaala baraha bulshada ee adeegsada ababkan ama applicationkan waxay sheegaan inay run ahaantii ay kordhiyeen ay hoos u dhigeen wakhtiga ay ku lumin jireen telefoonka iyadoo ay run ahaantii
adeegsadeen waxay adeegsadeen xadidaad gaar ah ay sameeyeen. waxaa jirta dhalinyarada ayaa gaar ahaan ka faa'iidaysata oo soo dejista badanka, maadaama ay badanaa waktiga ay ku sii daayaan baraha bulshada. tusaale ahaan marka aad isticmaalayso applicationadani, run ahaantii dhalinyarada badanaa waxa ay ogyahiin waktigooga inuu run ahaantii u baahan yihiin welis wakti aad isticmaasho telefoonka iyo wakti ay isticmaalin. waxay si fiican badkaad u maalinaysaa waktigaagii, si fiican ugu fadhiisanaysaa, markaana wax ka soo saaraysaa waxa loo yaqaano muro ay ka soo saaraysaa. haddaba daytaa isla fahamnay inaad soo dejisatid application aad ku isticmaashid oo jiraan oo waktigaaga yeelanaya wakti aad isticmaalashid. haddaba qodobka afraad waxa weeye loo yaqaano mudnaanta c, waxyaabaha la kulan dadka kale, si loo run ahaantii aad u istaagto isticmaalka ama ku tirsanaanta telefoonka. waa muhiim in aad ka qayb geshid lagu dhiirigeliyo isdhexgalka, waa inaad ka qayb geshid tooska ah dadka, waa inaad ka soo qaad meel bay conference ka jiraa, meel bay ka jiraan muxuu ahayd xaniiso, waa inaad tegtid ka qayb geshid. waayo waxay run ahaantii ka qayb qaadanaysaa howlaha bulshada ama kuwa kale ahayd banaankaba. waxayna ku siinaysaa dhiiranaan isdhexgalka inaad wax badan ka soo heshid. xagga telefoonka aad ku fokuska saari lahayd waa dadka dhex geshid, macluumaad baad yar keenaysaa. daraasado ayaa muujisay in dhalinyarada ka qayb qaadasha howlaha bulshada 25% ay yareeyaan isticmaalka telefoonka, maadaama ay ku mashquulsan waxyaabo kale. waxaa ka yaraana telefoonkii oo wax la sheegay saaba badan kala sheega. tusaale ahaan ururada dhalinyarada ayaa runaa si weyn ugu taageeraya howlaha kale ee kadwama, taasoo runaantii kaa caawin karta in dhalinyaradu ay helaan wakti dheeraada, maadaama wakti dheeraada heshaday oo run ahaantii telefoonkooda ayna ku isticmaalin. asaabi qodobka wuxuu ahaa waa inaad mudnad siisaa la kulanka dadka la kulmaysid ama ka qaybgalaysid barnaamijyada waaweyn iyo waxa loo yaqaan banaanada. waa muhiim weeye. qodobkiina shanaad waxa weeye telefoonkaaga u isticmaal sidii aad run ahaantii qalab wax soo saara, waa inaad wax ka gelaysid, waa inaad ekonomiga dhaqaalaha ka samaysid. inta badan waxaa la arkaa in telefoonka uu yahay qalab soo sameeyey oo run ahaantii keliya maahee wuxuu kuu suurta gelinayaa inaad run ahaantii loo isticmaalo sida inaad alaab wax soo saar ka soo saartid, inaad application ku waxaysid, inaad madadabeed dad wax kuu soo waxaysid, waa inaad dhaca fiican ka hegtid. tusaale ahaan isticmaalka barnaamijyada waxbarashada ama YouTube waxbarashada ayaa run ahaantii waxay ogaadeen ku dhowaad 30% hoos u dhigeen isticmaalka baraha bulshada, maadaama ay sameeyeen applicationada kuwa waxay dadka ay ka soo yareeyeen in dadka waxbarashada iyaga jaamacad dhiganayay ay ku waktiga siiyaan applicationadii wax u tiri lahaa. taana waa wax la soo saarmay, maadaama waktigu si fiican run ahaantii ay wax tahay wax lagu fayso, gaar ahaan qofku wax baranayo ay muhiim tahay. iyo waxay kordhinaysaa qofku oo ka mashquulo waxaa loo yaqaan korinta qofkiisa shakhsiyan qof koraya. adiga wuxuu dhabtuu noqonaya qofku wuxuu garan waayay xaw ka sunaya xaw ka socdo. dhalinyarada run ahaantii ayaa in isticmaalka barnaamijyada badanka waxbarashada ee applicationka ahaato meelaha waaweyn waa faa'iido weyn buu tahay, ama horumar xirfadeed bay ka helaan, aqoon bay ka helaan, taasoo ka caawinaysa inay yareeyaan ku tirsanaanta telefoonka. maadaama qof walba uu mashquulsan yahay waxaa ka yaraanaya isticmaalkii waxaa loo yaqaan mukhadaraadka dab ku noqon lahaa ay waxyaaba kale oo dantiisa uu ku faa'iidinay ayuu runaatii mashquulaya. qodobkeena lixaad ee mawduuciina waxa weeye waa abuur meelo aan lagu isticmaal telefoonkaaga gurigaaga. xaafadaada geshid waa inaad markaad gurigaaga aan isticmaalin, waa inaad meelo guriga ama dakhal meelaha kuwa telefoonka ku isticmaal. waxaa loo yaqaanaa waa hab muhiima, hab kaloo waxtar leh oo lagu yaray karo isticmaalka telefoonka waa in la abuuro meelo gaar ah oo guriga ka mid yihiin oo maanta aan la isticmaali karin. sidoo kale jiif markaad seexanaysid ama miiska cuntada, tusaale ahaan waxaa jirta boqolkii waxaa lagu isticmaalaa 60% dhalinyarada
ka tagta telefoonkooga qolka ayna seexanaynin, waxay run ahaantii sheegaan inay helaan hurdo wanaagsan maadaama ay hore u seexdeen ay telefoonka isticmaalin, waxay helaan badanaa hurdo wanaagsan. Run ahaantii sidoo kale waxay helaysaa wakti aad kula qaadato famigaaga, asxaabtaada, dhalinyarada asxaabtaa tihiin, taasoo run ahaantii noqonaysa wakti muhiima oo la qaadatid sheekooyin la sheegid. taas waxay ka caawin kartaa oo run ahaantii yaraynaysaa baahida aad u qabtid eegida telefoonka gacantaad ku haysatid. hadda waxaan soo gaarnay mudane iyo marwo gabagabadii mawduuciina maanta. ku tiirsanaan telefoonka waa caqabad run ahaantii dad badanaa ay la kulmaan, laakiin waxaa run ahaantii jira laakiin waa la xakamayn karaa. waxaad adeegsataa mudane iyo marwo, waxaad adeegsataa xeeladaha waaweyn, xeelado muhiim ah. wayna ogaataa kow in aad si tartiiba u yarayn karto isticmaalka telefoonka gacanta ku haysid ee la qabsatay. sidoo kale waa inaad dib ula wareegtaa xakamaynta waktiga gacanta ku qabataa iyo fiiro gaara samaysaa. waa inaad yeelataa daraasad. waxaa jirta daraasado ayaa muujiyey in dhalinyarada badanaa ee ka sheekeeya run ahaantii yaraynta ku tiirsanaanta dijitaalka ay boqolkiiba 40 bal qiyaasaa ay dejiyaan waxa loo yaqaano caafimaadka maskaxdooda. in la qaado qaab lagu dheelitiri karo, qaabaa ku dheelitiraysa isticmaalka telefoonka iyo waqtiyaasha aad firaaqada leedahay ka faa'iidaysanaysid. run ahaantii kuwaay waa hab aad ku maadaama tahay loo yaqaan teknolojiyaal. waa inaad garataa faa'iidooyinka ay leedahay, aad ka helaysid isticmaalka waqtiyaasha aad ka helin, waxay saameynta ay u leedahay caafimaadka maskaxda iyo bulshada. waxaa markaa garatid ayaa waxaad weliba xasuusno talooyinkan waxay gaar ahaan ku socdaan waa dhalinyarada xoog u simaasha iyagoo faa'iidana ka helayin ku dhex jiroon wax kasoo soo daawanaya. markaa waxaan leeyahay insha allah waqtiina ka faa'iidaysta, waqtiina haluminina, maalintiina haat maalin buuxsada, maalin buuxood oo xadhig ilaahay ku xiran taho waqtiya badan wax ka faa'iidaysateen. waxaan leeyahay saa iyo kulanti wacan, saa iyo kulanti dambe. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.